madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa markii ugu horeysay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan madax bannaanida iyo jiritaanka Soomaaliya. Aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil iyo aragtidiisa ku aadan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waan idinla wadaagi doonaa daawadayaal soo dhawaada. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa maanta kulan madaxtooyada maamulkaasi waxa uu kula qaatay haldoorka Puntland ee ku sugan magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi waxaana kulankaasi kala qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka maamulkaas. Qodobo dhowr oo ilaa iyo 3 gaaraya ayaana looga hadlay kulankaasi oo ay ka mid yihiin doorashada Soomaaliya oo uu in badan uu ku dheeraaday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini. Qodobka labaad ee looga hadlay waa aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil 26 bishii hore ee December ee sanadkii tagay 2025. Aragtidiisa ku aadan dhulka Sool, Sanaag iyo Cayn oo ay markaasi sheegato Somaliland iyo mowqifka Puntland ee madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed ayaa looga hadlay kulankii maanta ka dhacay madaxtooyada maamulka Puntland. Madaxweyne Saciid Dini ayaa inta badan hadalka ku dheeraaday waxaana uu sheegay in aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil aysan ka dhigneen in Somaliland dowlad ay noqonayso oo aysan ahayn dowlad rasmi ah, isagoo tilmaamay in Soomaalida ay ka wada hadlaan arrimaha masiiriga ah. Wuxuu intaasi ku daray in Somaliland dhulka ay sheeganayso 50% inuu yahay Puntland ama Puntland in ay ka tirsan yihiin. Gobolka Sanaag ayuu sheegay in ay dhammaantiis gacanta ay ku hayso Puntland, cid kalena ay sheegatana aysan jiri doonin sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Waxa uu sidoo kale ka hadlay mowqifkiisa ku aadan gobolka Sool. Madaxweyne Saciid Dini ayaa markii ugu horeysay waxa uu fagaaraha ka sheegay aragtidiisa gobolka Sool iyo Cayn isagoo si cad u sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul ka tirsan Puntland oo ku yaala dastuurka Puntland. Waxa uu sheegay in mashruuc waqooyi bari la yiraahdo xamar laga soo xawilay balse aysan taasi micnaheedu ahayn dhulka Puntland in uu kala go'ayo si fududna markaasi looga saarayo maamulka Puntland. Isagoo arintaasi si faahfaahinaya ayuu waxa uu farta ku fiiqay madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Puntland oo uu yiri arrimaha Sool iyo Cayn madaxweynaha ku-xigeenka ayaa laga rabaa in uu talo ka keeno isagana uu markaasi inooga xil saarnaado arintaasi ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini maadaama isaga uu ka soo jeedo. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in aysan qabin kala goynta Soomaaliya balse taasi ay ka shaqeynayso dowladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in iyaga ay kala geynayaan ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu intaa ku daray in difaaca, adkeynta iyo sidoo kale ilaalinta midnimada ay u xil saaran tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana looga baahan yahay in iyada door ay ka qaadato balse aysan door ku lahayn maamulka Puntland iyo sidoo kale dowlad goboleedyada kale ee hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini waxa uu sheegay in kulamo kale oo la mid ah in uu la yeelan doono bulshada, golayaasha dowladda, si gaar ah baarlamaanka ayuuna markaasi ula ballansan yahay caawa iyo xukuumadda oo ay markaasi beri ay is arki doonaan madaxtooyadana kulamo uu kula yeelan doona kadibna waxa ay soo saari doontaa Puntland mowqif rasmi ah oo arrimahan kaga aadan. dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe maanta baarlamaanka hortiisa ayuu kelmado ka jeediyay waxaana markaasi uu ka hadlay baarlamaanka ama xildhibaanada iyaga ka maqan kulamada fadhiga ay yeelanayaan baarlamaanka waxaana uu soo saaray digniin adag oo uu u jeedinayo xildhibaanada inta badan iyagu ka maqan fadhiga baarlamaanka oo aan ka soo qayb galin. Tallaabo adag ayuu sheegay in ay ka qaadi doonaan xildhibaanada aanan soo xaadirin baarlamaanka. in xuquuqdiis laga jaro yuu caddaynaya qof gaara loogama talagelin waxaa looga talagalay qofkii waajibaadkiis gudan waayo magacu yeeriskii xildhibaanadii haddana waa ku imaan waayeen marka xildhibaanada sharafta leh maanta waxaan digniin kama dambaysa ka bixinayno
maadaama shirka kahornaan u baaqday daraan uu baaqday yani dadka lama canaanin karo waxa mudana sharaftiisa inuu ilaalsado waajibaadkiisa dib inuu guto maartay isxilqaama laga rabay haddii taas lagu weyso sharciga lagu kala dambeeyo yaan anagu dabaqayna hadduu ilaahay yidhaahdo waana markii hore hoosadka qof gaara looma samaynin waxaa loo sameeyey qofkii gudin waayo waajibaadkiisa loo sameeyey marka walaalayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan leenahay maanta ugu baaqaynaa sabtiga horteena ah haddii ilaahayna gaarsiiyo xildhibaanadii liiskooda horta waa la yeelinayaa koo xildhibaan kastana waxaan fiirin doonaa intuu u maqan yahay sabab la-aan u maqan yahayna waa fiirin doonaa waxaana dabaqi doonaa heer hoosadka waxaana faraayo oo ah qofka mutaystay sida heer hoosadka tilmaamahayo in xuquuqdiisa qaar laga jiro uu tilmaamahayna sideedaa loo fulinaya marka xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada maaragtay weligood dadaalkooda dheeriga ahaa oo fadhiyeyna runtii aanan u nahay marka qodobkaas oo 23aad farqidiisa 11aad marka walaalayaal qodobkaas hal la fiiriyo haddaan anagu ku gardaranahay iyo haddii baarlamaanka soomaaliyeed horey u samaystay idinka arki doonaa anag marka waxaa waajib nagu ah inaan heer hoosadka dabaqno si u noqdo maaragtay baarlamaanka bas golaha ay u noqdaan waajiba golo sharcigooda ku dhaqma shuruuda ixtiraama waajibaadkiisa guta si aan u noqono dhammaanteed cid kastana waajibaadka meel bay ka leedahay marka walaalayaal taas waxaan maaragtay maanta aan digniinteeda kama dambayska aan bixinaynaa xildhibaanada sahladeeyo hadhow markii la yidhaahdo qaladkaasaad gashay xuquuqdaad intaasaad ku weysay markii la yidhaahdo waan ogahay dadaas soo istaagaya ka murmaya taas waxaa loogu bixi karaa in maqnaashaa la iska dhaafo loo hogaansamo shuruucda noo taal in loo hogaansamo loogu bixi karaa laakiin aniga inaan waajibaadkaas fulino qalad nagumaha dembi nagumaha waa waajibaadkii lanaga rabay oo aan gudinay bay noqonaysaa xildhibaanadan waxaan ugu baahannahay barnaamijkaas in dhammaanteeni isku si loogu fikiro anugu dhaqaale doon minihin lacag xildhibaan leeyahay ma rabno inaan qaadano laakiin waxaan rabnaa maadaama isxilqaankii la gudin waayey in dadkii laxijeeladaas waajibaadkay ku gutaan si lacagtooda u helaan saasaan ugu bedelayna maahayna kama rabno lacagta lagoyn meesha lageynahay golaa iska leh go-aankeeda maclum weel ma dhiganayno laakiin waa jiraynaa ilaah yinkiis qofka waajibaadkiis gudin waayo taas waa idin ogeysinaynaa xildhibaanayaal aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaano oo waajibaadkooda runtii si caadi u gutay waxa dheeri ku daray oo mudnaashada qaar horeysa hadda sarafaan siinay qaarkan hadda siin doonana waa jiraan xaqiiqadii marka walaalayaal anagu waajibaadkaad shalay noo doorateen baan ku dheganahay wax gaara ma wadno heer hoosaadkii golaa lahaayeen baanu ku dhaqmi doonaa kama gudbayno heer hoosaadkana sidaas inaan isku ogaano xildhibaanada maqan waxaan leeyahay maanta waa maaragtay waa arbacaa khamiis iyo jimca waxaa ku socota sabtiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa in kooramkaasa la waayay iyo buugtan inay meesha ka dhicinin maalintaas haddii kooramka dhan yahay hataa waa yeelinayna dadka haddii hataa u dhan yahay kooramka shal iskama bilaabanayno xildhibaanada waa la yeelinayaa waxaana baari doonaa liisiska maaragtay xaadaraad ku qarintahayna waa la baari doonaa waxaan rabnaa muddadii noo hartay waajibaad culus ayaa la saaran walaalayaalow markii xildhibaan la doonayo waa la ogaa sidii loo jecelaa xildhibaanada in la iska maaragtay hadda maaragtay noqoto ummaddii loo shaqayn waayo ceebay nagu tahay warkan idinku badinaayo aad iyo aad aad u mahadsantihiin xildhibaanadii yimid iyo kuwiisa nidaama ku maqan amba jiro ku maqan amba shaqo ku maqan waa mahadsan yihiin laakiin dadka tacaddo u maqan waxaan leenahay walaalayaal kawaanka waa qalbintihiin saasaan leenahay fadhigeena maanta koordinacaan wuxuu yahay ay saakay ay noo tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin